السلام عليكم سلو هذا ما أنت وحارنا أنا كهذا إنه عوام مهمة واه RBC indices أوكي RBC indices وحكو جرا وحبا أميسن أرضي الربع إنه يقام صوبتها CBC مركز آخر نيزيد وحبا أميسن إلى فيري وإنتان أوكي إنك لبو ما أنت لكن كما هل لينو CBC interpretation لكن وحكاري مينا RBC indices وحلي راعي RBC indices محلها و MCV MCH MCHC iyo inta badan RDW waxa isku yiraahdaa maxaa la yiraahdaa RBC indices hadaba waxa ka bilaabeynaa MCV okay sidoo kale waxa jiro RBC aan ka tagin RBC iyo hematocrit iyo sidoo kale maxaa la yiraahdaa HB okay HB iyo hematocrit waa ka soo hadalnay shirkii koowaad uga hadalnay RBC aadina RBC waa ka hadalnay sarjeenay haddaan hal mar dul marno RBC waan qaana waa red blood cells okay muhiimada uu leeyahay maxaa RBC wuxuu qaadaa oxygen-ka si maxaa la yiraahdaa jirka u gaarsiyo normally meeqa laga rabaa male iyo female oo lagu kala duwan yahay okay male iyo female oo lagu kala duwan yahay RBC male waxa laga rabaa inuu noqdo normally 4.5 up to 5.5 okay and female waxa la rabaa 3.5 up to 5 okay million asiga waxa lagu cabiraa waa million okay so ina taqaanid waa marka okay hadaba waxaan rabnaa marka inaan ka hadalna ayadana hematocrit iyo HB-gana casharkii koowaad ugu soo hadalnay hadii u baahan tahay ku laabo okay normally iyo waxay yihiin hadaba waxaan rabnaa inaan ka hadalna marka waxaan rabnaa inaan ka hadalno MCV maxaa la yiraahdaa okay CBC lagu keenay RBC in saarta in akhrisid MCV waxa la yiraahdaa aragtaa MCV waxa lagu soo gaabiyay mean corpuscular volume ama waxa dhigi kartaa mean cell volume okay isku mid waa maxaa laga wadaa marka MCV maxaa laga wadaa MCV waxa laga wadaa waa average volume of RBC okay inta volume ee ku jirta RBC ga average ahaan waxa la yiraahdaa MCV normal meeqa laga rabaa MCV marka okay normal waxa laga rabaa 80 ilaa 100 okay so normally 80 ilaa 100 ayaa laga rabaa inuu ahaado MCV ama mean corpuscular value okay waa volume-ka of RBC average ka laga rabo so meeqa laga rabaa normally 80 ilaa 100 hadii marka MCV ga aad fiirisid RBC CBC aragtay MCV aad fiirisay 80 ilaa 100 normally waay okay markaas waxa dheeynaa waa normal 80 ilaa 100 waxa dheeynaa waa normal kawaran MCV ga hadii uu less than 80 yahay okay wuxuu ka yiri less than 80 waxaan ku sheegay hadda inuu laga rabo normal 80 ilaa 100 hadii uu 80 ka yar yahay maxaa waay 80 haduu ka yar yahay waxa loo yaqaan microcytic anemia microcytic waay microcytic so microcytic cudurada hoos imaada maxaa kamid ah marka waxa kamid ah waxa la yiraahdo iron deficiency anemia okay waa ka soo hadalnay iron deficiency anemia thalassemia anemia of chronic disease iyo sidoo kale sideroblastic anemia so hadii aad aragtid MCV ga 80 inuu ka yar yahay cudurada aad u shakinaysid waa inay ahaadaan microcytic anemia okay maxaa kamid ah iron deficiency thalassemia anemia of chronic disease iyo sideroblastic anemia hadii MCV ga normal uu ku yahay 80 ilaa 100 haduu ku yahay waa normal soma laakiin HB gu uu ku yar yahay HB ga meeshii la rabo inuu ku ahaado 12 ka koreeyo waa 5 okay laakiin 80 ilaa 100 u dhaxeeya waxa loo yaqaan waa normocytic waa marka laakiin anemia wali jirto okay HB gu yar yahay cudurada jir looga shakinayo aydan waa ka hadli doonaa hadii MCV ga more than 100 uu yahay ka waran MCV ya fiirisay more than 100 waa cudurada u shakinaysid maxaa waay waxa ku noqonaa cudurada u shakinaysid megaloblastic anemia okay megaloblastic anemia maxaa kamid ah vitamin B12 deficiency iyo maxaa kale folate deficiency iyo sidoo kale waxyaabaha kale oo microcytic oo macro magaca loo yaqaan maxaa marka 100 haduu ka badan yahay macrocytic waa okay macrocytic sorry microcytic waa kan haduu 8 ka yar yahay 100 waxa loo yaqaan microcytic
so macrocytica waxaan aan boqol wax duu ka badan yahay waa maxaa kamid ah macroplastic oo la yiraahdo vitamin B12 deficiency iyo folate deficiency also xataa waxaa keeni karo hypothyroidism okay haddii nan macroplastic hypothyroidism sometimes waxay keeni kartaa macrocytic anemia inkastoo la dhaho hypothyroidism waxay keeni kartaa saddexdaba okay normocytic ay keeni kartaa macrocytic ay keeni kartaa waxay kaloo keeni kartaa microcytic very important waa and maxaa kale oo kamid ah liver disease hadduu jiro okay liver diseases okay alcohol hadduu qofka isticmaalo waxyaabahaas oo dhan waxay keeni kartaa macroplastic so haddii ka waran normocytic uu yahay patientigan uu ku imaaday MCV normal waa MCV ya fiirine 80 ilaa 100 waa laakiin HB ga anemia jirto qofka patientiga maxaa uu shakinina waxa dhayna normocytic waa qofkan normal waa anemia waa laakiin MCV giisa normal waa maxaa cudurada keena maxaa kamid ah anemia of chronic disease waa soo hadalnay anemia of chronic disease waxaa kaloo kamid ah maxaa la yiraahdaa autoimmune hemolytic anemia okay waxaa kaloo kamid ah maxaa la yiraahdaa G6PD deficiency iyo cudurro badan oo kale okay so marka inaa kala taqaan muhiim waay hadda waxaa baranay MCV aan baranay CBC aa fiirisay MCV aragtay MCV normal waxa laga rabaa 80 ilaa 100 hadduu 80 uu ka yahay cudurrada uu shakinays waa intaan haddii uu normal ku yahay oo laakiin anemia ay jirto intaan haddii 100 uu ka badan yahay waa intaas okay MCV meesha uu baxnay MCH ka waran bal MCH waxaa laga soo gaabiyay mean corpuscular hemoglobin okay maxaa laga wadaa waa average content of hemoglobin per RBC RBC ga in RBC kasto macna okay per RBC waa RBC kasto inta content oo hemoglobin ku jirto waxa loo yaqaanaa MCH okay so inaad taqaan muhiima so MCH ka marka muhiimadiis maxaa waaye muhiimadu waxa ku ogaa doonaa colorka okay colorka RBC ga inuu yar yahay hemoglobinta ay ku yartaa wax noo cadeynaa MCH waa haddii MCH ka uu yar yahay macnaheedu waxa waaye meesha colorka oo hemoglobinta uu yar yahay okay haddii uu badan magaca loo yaqaanaa marka waxaa loo yaqaanaa haddii MCH uu yar yahay waxaa loo yaqaanaa hypochromic macnaheedu maxaa colorka yar hypochromic okay hadduu badan yahay maxaa loo yaqaanaa hyperchromic so hypochromic hadduu yahay ka waran maxaa keeni karo inta badan haddii MCH ka uu asina fiirsan normally waxa aragtay inuu yar yahay maxaa keeni karo waxyaabo badan keeni karo maxaa kamid ah hypochromic waxyaabo keeni karo iron deficiency anemia kamid ah waxaa kamid ah maxaa la yiraahdaa iyo cudurrada badan okay iron deficiency anemia thalassemia waxyaabahaas oo dhan waxay keenayaan MCH ka inuu yaraado okay haddii marka hyperchromic ay jirto ka waran maxaa keeni kara hyperchromic waxa keeni kara macroplastic anemia aydan okay sorry normochromic hadduu yahay normochromic hadduu yahay maxaa keeni karo waxa keeni karo macroplastic anemia waxyaabahaas oo kale keeni kara so inta badan bukaanku wuxuu kula imaan doonaa hypochromic anemia kula imaan doonaa okay MCV gisan uu yar yahay MCH kan uu yar yahay so maxaa loo yaqaanaa marka microcytic hypochromic aan leeyahay doonaa marka okay microcytic hypochromic anemia haddii okay ama maana marka MCHC inta u galin kor se lagu soo saari karaa MCH ka waxa lagu soo saari karaa HB ga RBC loo qaybiyaa 10 lagu dhuftaa okay intaas waa soo saari kartaa MCH ka MCHC ga maxaa waa asina MCHC ga uu ka duwan yahay MCH ku ka duwan yahay maxaa waaye waa mean waxa laga soo gaabiyay mean corpuscular hemoglobin concentration okay maxaa laga wadaa marka waa average content of hemoglobin per unit volume of RBC oo dhan inta content of hemoglobin ku jirto waxa la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa MCHC tusaalahan oo kale tube kan inta RBC ku jirto dhan waxa loo yaqaanaa maxaa la yiraahdaa MCHC okay so waa mean corpuscular hemoglobin concentration sidoo kale marka hadaa u maano waxa la yiraahdaa RDW okay RDW muhiim very important waa sina RDW waxa laga soo gaabiyay red cell distribution with okay muhiimadiis maxaa marka ama maxaa waa asiga waxa lagu ogaadaa variation of RBC diameter okay diameter average ka normal RBC maxaa laga rabaa 7 micrometer laga rabaa Soma average markii la fiiriyo size of RBC ga 7 laga rabaa so hadii size ka RBC uu kala duwan yahay ka waran okay waxa imaanaya RDW ga maxaa la yiraahdaa inuu cilad ku imaado waxa loo yaqaanaa marka waxa loo yaqaanaa marka ancetosis okay cytosis la yaqaanaa okay hadii marka RDW ga aragtay bukaana aragtay RDW badan yahay maxaa keeni karo okay RDW high way maxaa keeni kara RDW high waxa keeni kara oo ugu muhiimsan ugu caansan waxa waa iron deficiency anemia okay iron
deficiency anemia. So muhiim waa marka inaad taqaanid RDWM kaaga. RDWM ka wuxuu ka tarjumaa size-ka RBC uu ka tarjumaa, okay? haddii size-ka uu cilad ka jiro wuu bada doonaa asiga. hadduu bato cilad waxaa niyad inaa ku haysa la rabaa iron deficiency anemia, okay? iyo cuduradaas. So waxaa hadda maanta saan ugu hadalnay waxa la yiraahdo RBC indices, okay? RBC indices kan waxay kaa saacidi doontaa marka akhrinaysid CBC, marka akhrinaysid inaad go'aan ka gaartay aad dhahdid bukaanka microcytic anemia waa, inaad dhahdid normocytic anemia waa, inaad dhahdid maxaa la yiraahdaa macrocytic anemia waa. sidoo kale wuxuu kaa saacidi doonaa hyperchromic mia iyo normochromic inaad ogaatid. sidoo kale wuxuu kaa saacidi doonaa inaad dhihi kartid iron deficiency anemia waa iyo ma aha, okay? hal mid kale aan idinkugu daraa oo faa'iido muhiim ah. waxaa jirto wax la yiraahdo Menzer index, okay? intaa ku qori doonaa ila socda. waxaa jira wax la yiraahdo Menzer index wax la yiraahdo. Menzer index kan maxaa waaye marka muxuu yahay Menzer index? Menzer index waxaa waaye bukaana ku imaaday waxaa aragtay inuu yahay microcytic anemia inuu yahay less than MCV 80 aragtay. marka maxaa uu shakinay? waxaa uu shakinay lambarka koowaad uu shakinayso waxaa waaye waa iron deficiency anemia iyo thalassemia, okay? labadaas lagu shakiyaa. so say ku kala sooci karaan marka ani bukaankan inuu yahay iron deficiency anemia iyo inuu yahay wax la yiraahdo maxaa la yiraahdaa thalassemia inuu yahay say ku kala ogaa karaan aniga. waxaa ku kala ogaa karta wax la yiraahdo Menzer index, okay? Menzer index kan waxaa marka RBC-ga waxaa u qaybi doontaa RBC-ga waxaa u qaybi doontaa hemoglobin, okay? RBC-ga waxaa u qaybi doontaa MCV-ga, sorry, RBC MCV u qaybi. tiradu kuu soo baxdo haddii ay 13 ka badan tahay, haddii 13 ay ka badan tahay waxaa dhihi doonaa bukaankan waa iron deficiency anemia waa, iron deficiency anemia waa. haddii 13 uu ka yaryahay bukaanka thalassemia waa, okay? waxaa lagu kala soocaa Menzer index, iron deficiency anemia iyo waxaa lagu kala soocaa thalassemia, okay? waa muhiim inaad taqaanid Menzer index. so intaan maanta ku ekeynayna insha Allah tacaala. RBC indicesna waa muhiim inaad taqaanaa. every patient, every dhakhtar aad tahay waa inaad taqaanaa, every arday aad tahay waa inaad taqaanaa oo medical student ah inaad fahmi kartid waa. interna haddaa ku jirtidna very important iyo ku tahay inaad taqaanid. waxaan rajeynaa in hadda kadib aadan ku wareeri doonin wax la yiraahdo RBC indices, aadan maxaa la yiraahdaa sharaxaad badan u baahnaan doonin. horena insha Allah tacaala aad ka fahmi doontid markaa fiirisid warqadda bukaanka anemia nuuxuu yahay. intaasaan kusoo gabagabaynaynaa insha Allah. wixii su'aali commenti xagga hoos nagu dhaafa. telegram aa sameynay xaggaas ku wada xiriiri doonaa. wixii lag jara iyo wixii dhan xaggaas soo dhigi doonaa insha Allah. thank you so much.